hadlana maanta baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter waxa dhacday in dadku ay isku dhajiyaan ereyada ama ay fudaystaan si ay si dhaqso ah ugu diraan ama ugu gudbiyaan iyagoo hal far ama laba farood adeegsanaya. marka laga hadlayo saameynta baraha bulshada ay ku leeyihiin luqadda Soomaaliga waxa isbedelka ugu weyn ee ku yimaada ereyada hore ugu jiray ee dadku ay isku isticmaalaan ama isku dayaan inay soo gudbiyaan. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay waqti intee leeg ayaad ku bixisaa adeegsiga baraha bulshada. daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in muddada ay dunida oo dhan dadku isticmaalaan baraha internetka ee bulshada ku xidhiidha celcelis ahaan kordhay ku dhowaad 60% toddobadii sannadeed ee ugu dambeeyay. xarun daraasaadka samaysa oo la yiraahdo Global Web Research ayaa soo bandhigtay xog laga helay 45 gobol oo ka mid ah kuwa internetka aadka loogu isticmaalo dunida, waxaana soo baxday qiyaas ah in dadka ay ogaadeen adeegsiga barahaasi ay korodhay qiyaastii 90 daqiiqo maalintii. haddaba 90 daqiiqo maalintii oo ay ahayd 2012 ilaa 2020 la taagay maanta waxay gaadhay 143 daqiiqo saddexdii bilood ee ugu horreeyay 2019 ilaa 2020. waxaa jira kala duwanaan heer gobol ah iyo dalalka qaarkood. Latin America oo ah dadka ugu isticmaalka badan barahaas oo lagu sameeyay kuwa waxaa jira kala duwan heer gobol iyo heer qaaradood. Latin America haddaba aynu dadeen soo qaadano celcelis ahaan inta waqtiga ay ku qaataan Facebook ama Twitter ama baraha bulshada oo dhan. gobolka isticmaalka dadkiisu ugu hooseeyo celcelis ahaan waa waqooyiga America oo ah 116 daqiiqo maalintii. dalka Philippines ayaa dadkiisu u noqdeen kuwa waqtiga ugu badan ku bixiya barahaas 240 daqiiqo maalintii, halka dadka reer Japan maalintii isticmaalaan 45 daqiiqo. hoos u dhac laakiin malaha la yaabka ugu weyn ee ka soo baxay daraasadda lagu sameeyay 1.8 milyan ee uu qof ku nool 20 dal waxa weeye in dadkaasi ay waqti badan isticmaalaan baraha bulshada ama ay ku bixiyaan waqtigooda, waana wahsiga dilaha waqtiga weeyaan ama wahsiga laga qaado baraha bulshadu. Global Web Research waxay sheegtay in xogta ay heshay muujinayso in dad badan oo internetka adeegsada ay haatan dhaadan yihiin waqtiga ay shaashadaha eegayaan inta uu yahay. dadka internetka adeegsada waxay haatan ku lumiyaan maalintii 6 saacadood iyo dheeraad internetka 3 meelood oo meel ka mid ah waqtigooda. waxay gaar u tahay baraha bulshada ayuu yidhi Chase Bekel oo ah maareeyaha ka tirsan xaruntaas oo ka hadlay dalalka daraasadda laga sameeyay ayaa ah dalal Thailand oo laga reebay waxa uu ka noqday dalka ugu hoos dhaca ee ugu weyn ee ku yimaada waqtiga ay dadkiisu ku bixiyaan adeegsiga baraha bulshada. celcelis ahaan waxa uu hooska ugu dhacay 194 daqiiqo waxaanu noqday 111 daqiiqo intii uu dhaxaysay 2019 ilaa 2020. haddaba haddaynu soo qaadano asxaabay, Vietnam ayaa waqtiga adeegsiga baraha bulshada hoos u dhacay 10 daqiiqo marka la barbar dhigo sanadkii hore. Indonesia, Belgium, Ghana iyo Mareykanka ayaa sidoo kale uu ka muuqda hoos u dhac weyn, laakiin dalalka daraasadda laga sameeyay badankooda ayaa korodhay muddada dadku ay ku bixinayeen adeegsiga baraha bulshada. dalalka qaarkoodna aad ay u kordheen, qaarna aad ay hoos u dhacay isticmaalka baraha bulshada. celcelis ahaan qofka Shiinaha ahi waxa uu maalintii adeegsadaa baraha bulshada 139 daqiiqo, taasoo 19 daqiiqo ka badan sanadkii 2019 ilaa 2018. adeegsiga maalinlaha ee Sacuudiga ayaa kordhay 14 daqiiqo maalintiiba, halka dalka Turkiguna uu kordhay 13 daqiiqo. haddaba haddaynu ka nimaadno waxyaabahaas oo dhan, waxa baraha bulshada imika ku batay fayo-qabka ama beenta la sheegayo ee beenta la kordhinayo ama dadkay oo cilmi baaris lagu sameeyay ayaa dadkii intooda badan been la sheegayna been ay ka socoto baraha bulshada. dadkiina waxay ugu mashquuleen si aad iyo aad ugu badan. haddaba sidee ku habboon ma jirto muddo cayiman oo rasmi ah oo ay tahay in ay dadku in ka badan adeegsadaan. hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa talo bixin u horeysay dadka oo tiri caafimaad xumo ayaa laga qaadaa iyo dhalinyarta oo soo jeeda habeenkii. haddaba ma khasaarihiisa badan mise faa'iidadiisa? labadaba haddaynu ka hadalno faa'iidadiisuna way badan tahay, khasaarihiisuna wuu badan yahay, laakiin qofba si uga faa'iidaysta weeyaan. laakiin beenta ayaaba soo kordhay iyadoo ayaamihii ugu dambeeyay baraha bulshada sida Facebook la isla dhex yaacayay. waxaa dhintay Maxamed Warsame Hadraawi, abwaankii weynaayay Hadraawi, isagoo nool isaguna markii dambe ka soo hadlay. sidoo kale waxaa la soo raaciyay jilaaga weyn ee filimaanta turtuma ee Atagis
haddaba beenta dhalinyaradu ay sheegayaan maxay ka faa'iidayaan waa dembi waana la sheegay qofka been dadka u sheega ama uga warama waa dembigiisa uu leeyahay waayo dad badan ay waxay noqotay teknolojiyad ka ilaa jooga Asia ilaa jooga Soomaaliland ama Soomaaliya ayaa ayar loo daray hal fadhimeed waayo sababtan ayaa timaaday markii internetka la sameeyay jaamacadda Oxford ayaa soo saartay waayo cilmi nafsiga tijaabooyinkiisana waa la sheegay in dadku intooda badani ay been sheegaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan sii share garee linkiga hoose ee description ka dhignay waa linkigii kanaalka iftiinka xogta hal qofna ha ahaatee si ay kula wadaagaan oo aanu horumar loo gaadhno. sidoo kale waad mahadsantahay fadhi